madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud khudbadii uu ka jeediyay caleemasaarka madaxweyne Cabdiqaadir Axmed Wacali Firdhiye ayaa wuxuu ku sheegay in maamulka SSC Khaatumo uu ku garab istaagi doono dhisidda maamulkaasi sida ugu dhaqsiyaha badan isla markaana ku adkeeyay inay qayb weyn ka noqdaan midnimada ummadda Soomaaliyeed isla markaana baaq xasaasi ah u diray walaalihiina Soomaaliland kuna yiri aniga idin jecel ay ina xukumo lan dhamayso khudbada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ana ilowina subscribe dhahdo muuqaalkana like saarto inkastoo maanta maalin weyn ay tahay oo warka gaabnaanta aanay ku fiicnayn salaanta iyo sidii horeyba aad loogu tiriyay ayaan la qabaa nin walba magaciisa iyo maqaamkiisa ayuu ku salaaman yahay waxaan rabaa walaalayaal maanta waa taariikh cusub oo ayadana dalkeenna maalmaha ay taariikhda cusub u qormaysa ka mid ah dalkeenna iyo dadkeenna maanta waxaa u samaysmay taariikh kale oo cusub oo ku korortay kuwii maanta la tiriyay ee faraha badnaa ee baryahan dambe aan soo samayn waa taariikhna gudbinaysa kala qaybsanaantii ay sabab u ahayd isticmaalkii inoona gudbinaysa midnimada dalkeenna iyo dadkeenna astaan aan fiicnayn oo ah in horeyna si darra inoogu dhacday oo dalkeenna la kala qaybiyey oo qaybo kala duwan loo kala qaybiyey oo isticmaar qarniyadii hore jira uu kala qaybsaday inay astaan noqoto oo adigana hebelaa ku gumaysan jira anna hebelaa i gumaysan jira aan ka dhiganno abtirsiinyo iyo astaan waxay ahayd nasiib darrooyinka waayahan dambe aad iyo aad loogu weynaay waxaan rabaa inaan mar kale aan hambalyo u dira marka dowlad goboleedka waqooyi bari oo diiday astaantaas taariikhda xun ah waqooyi bari waa diiday waxay tiri maya waxa aan isku nahayaan naqaanaa waxna lagu khasbay oo shalana lagu dhibay oo taariikh xun oo madow ahayday nooma noqon karto sumad nagu suntan nooma noqon karto waa ku mahadsan yihiin waana u hambalyaynayaa maamulka cusub ee dhashay iyo dadka reer waqooyi bari intaba ee taariikhdoodii mugga lahayd aad iyo aad looga soo sheekeeyey maanta waxaan rabaa maanta marka in aan halkan mar kale aan ka xoojiyo oon ku dhawaaqo magaalada laascaano inay tahay magaaladii midnimada Soomaaliya waa astaantii midnimada waa astaantii maxaan ku rahaa Soomaalinimada hadda kadibna caasimadda midnimada loo aqoonsan doonaa haddii aan la yiraahdo waxaan sidoo kale hambalyo leeyahay saaxiibkay isku tiirsadae dalkiina taagdaranay taageera weligiine waa maasantiin keenna taag daran taageera weligin keenna taag daran ma aha mid xagga xoogga iyo xagga ciidanka iyo xagga kulishe keenna xagga fikirka iyo dareenka ka liita xataa waa inaan taageerno waa inaan taageerno maanta waxaan rabaa marka halkan inaan hambalyo uga diro walaalkay madaxweynaha dowladda waqooyi bari Cabdiqaadir Axmed Wacali Firdhiye iyo madaxweyne ku-xigeenka Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil iyo gudoomiyaha golaha wakiilada Dr. Aadan Cabdullaahi Ow Xasan iyo gudoonka golaha wakiilada intiisa kaleba sidaasoo kale dadka sharafta leh ee munaasabadan weyn isugu yimiday oo ay ugu horeeyaan ama hormoodka ay u yihiin garaadada odayaasha dhaqanka boqorrada suldaanada garaadada odayaasha dhaqanka hooyooyinka dhallinyarada iyo culamaa u diinka sidoo kale
waxaan hambalyo leeyahay guud ahaan ciidamada amniga ee waqooyi bari ee suurto geliyay nabaddan inaan ku xafladeyno oo aan ku dabaaldegno suurto geliyay maanta waxaan halkan ka cadaynayaa in waqooyi bari ay tahay dawlad goboleed xubin ka ah jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya waxaan rabaa oo kale waa dawlad goboleed buuxda haddii aan la yidhaaho oo xubin ka ah dawladda federaalk ee Soomaaliya waxaa kale oo aan rabaa inaan ayadana halkan aan ka caddeeyo waqooyi bari in ay leedahay dhammaan xuquuqda ay leeyihiin dawlad goboleedyada kale ee dalka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya waxayna hadda wixii ka dambeeya u istaagaysaa dib u dhis horumarin deegaanada waqooyi bari ee Soomaaliya sidoo kale dawladda federaalk ee Soomaaliya waxay ka saacidaysaa maamulka cusub dhinaca amniga iyo deganaanshiyaha deegaanada waqooyi bari waqooyi bari waxay astaan u tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo ilaalinta madax bannaanideeda iyo wadajirkeeda ummadda Soomaaliyeed waxaad halgan dheer u soo gasheen oo aad saldhig u noqoteen midnimada dalka oo aad wax badan u hurteen inaad xaqiijisaan waa taariikh qormaysa iyo fariin aad u diraysaan kuwii u shahiiday xorriyadda iyo kuwii naftooda u huray midnimada dalka jiritaanka iyo horumarka dawladda waqooyi bari intaas ay xambaarsan tahay oo in dhimatay iyo in noolba macno ugu fadhida waxaan halkan ka caddaynayaa inaad dunida iyo dadka Soomaaliyeed u xaqiijiseen inaan Soomaaliya aanay kala go'i karin waxaad halkan fariin uga diraysaan anna aan idinku raacsanahay idinla dirayaa Netanyahu oo dhulka reer Falastiin boob ku haysta hor istaagsan dawladnimada reer Falastiin dunida dhan ay aqoonsatay waxaan cod dheer ku leeyahay marna suurtagal ma aha in Israa'iil ay ka samaysato Soomaaliya dhexdeeda dawlad furisa istaraatiijiyadeeda guracan suurtagal ma aha istaraatiijiyooyinkaas guracan inay gobolkan ka hana qaadaan ama dawlad Israa'iil wakiil uga noqota u shaqaysa sidii ay ayadu rabto suurtagal nagama aha dabcan sida ay rabtana waa dhammaanteen Netanyahu waxaan leenahay dadkii Soomaaliyeed waa diideen arrinta dunida oo dhanna waa diiday damacaaga guracan waxaan leeyahay gobolkan ma aha meel si qasab ah loogu soo raro dulmanayaasha reer Gaza ee guryahoodii la dumiyay dhulkoodii la qaatay inta kalena qaato la raba hadda sidoo kale ma aha meel loo soo raro colaadda gaamurtay ee bariga dhexe ka soo jirtay muddada aad iyo aad u fog walaalayaal waxaan leeyahay maamulka waqooyi bari waxaanu idinku garab istaagaynaa sii wadidda nabadda iyo dib u heshiisiinta oo ay ugu horrayso isweydaarinta maxaabiista ku xiran labada dhinacba oo dhan kasta xorriyadda wiilasha Soomaaliyeed ee dhan kasta ku xiran cudurdaar looma haayo sii xirnaantooda sidaas daraaddeed dawladda federaalka waxay u istaagi doontaa idinkuna garab siin doontaa cid kasta oo danaynaysana ay garab ugu tahay in wiilashaasi xorriyaddoodii ay dib u helaan meel kasta ha ku xirnaadeena ee siyaasadda xoogaa qoocatay u xiran waxaan u mahad celinayaa reer waqooyi bari sida ay nabadda ugu heelan yihiin waxaan rajaynayaa inay helaan cid la nabadowda nabadday u heelan yihiin
cid sidoo kale nabadda u heelan in ay helaan ayaan rajaynayaa. siyaasadduna waa halkeeda oo waa mar kasta midnimadoon inaan wada nahay kulligeen. dhinaca siyaasadda mugay noqoto waxaan ku midoobaynaa waa midnimadoon iyo midnimadii inaan xaqiijinno. waxaan halkan dhambaal uga dirayaa shacabka kale ee waqooyiga Soomaaliya ku nool oo aan leeyahay kuna celinayaa marar badan, walaalayaal Soomaali baa tihiin, waxaan wada leenahay dal Soomaaliya la yiraahdo oo caalamku u aqoonsan yahay in ay yihiin dal xor ah oo jira. waqti badan ay isaga dhumina mid cusub oo hadda la baarbaarayo. waxaan diyaar u nahay inaan ka wada hadalno mustaqbal qurxoon oo aanay suurtagal ka ahayn wixii shalay dhacay inay soo laabtaan. mustaqbalkaas qurxoon waxaa suurtageli kara oo keliya waa midnimo ku timaada wada hadal heer kasta iyo isu tanaasul. ma aha heerka nationalka bas inaan midnimada ka raadin ama ku wada hadalno, laakiin waa inaan gunta ka midownaa si aan midda kore ay u adkaato una ilaalinaa haddii aan la yiraahdo. waxaa wax kasta oo inaga dhaxeeya wada hadal dhinaceenna wax lagama hadli kara aan leenahay wax kasta oo aan ahayn midnimada waa laga tanasulayaa iyo waa laga tegayaa laga hadlaan ogolnahay. midnimada wada hadal midowna wada hadal diidmo kama fura midoobaynaa iyo sidaana xoon iyo waxaasoo dhamme hase yeeshee waa ka furan yihiin. laakiin maanta waxaasoo dhan waxaa isku fuuqsanaya hal shay: dhulboobka Israa'iil waa maya, waa maya, waana qad axmar, qad cas oo aan in laga gudbo aanay ahayn waay. danteenna maaha, danta geyigan aan ku noolnahay ma aha. netanyahu isaga ayaa go'doon ku jira, kama yeelayno inuu qaybo ka mid ah shacabkeenna Soomaaliyeed go'doonka uu ku jiro oo kale uu geliyo ka yeemayno. aqbalaadda aqoonsiga netanyahuna go'doon ay dadkeenna gelinay qaybo ka mid ah. marka wax la aqbalo ma ahan haddii aan la yiraahdo. waxaan uga mahad celinayaa hoggaanka iyo shacabka waqooyi bari sidoo kale inay nagu saacidayaan sidii nabad looga dhalin lahaa shacabkeenna dhexdiisa, loona sii dayn lahaa wiilashaas aan sheegay, oo loo furi lahaa waddooyinka si loo sahlo isu socodka dadka iyo ganacsiga, loona walaalayn lahaa dadka Soomaaliyeed. intaasoo dhammi waa in aad iyo aad u qurux badan, wanaagsan, annaan filaayo kana rajaynayo shacabka iyo madaxda waqooyi bari in ay ogol yihiin. waana rajaynayaa cid la ogolaato oo ka aqbasha ilaan hal gacan kaligeed ma sacbisaan la yiri, waa in gacan kale la helaa. waxaas quruxda badan aan ka helnay aan sheegnay oo dhan waa in la helaa cid kale oo la qaadata oo la aqbasho oo la weynaysa. ilaahay idinkiis waana la helayaa. walaalayaal, ugu dambayntii waxaan ugu baaqayaa aqoon-yahanka, dadka khibradda leh iyo qurba joogta Soomaaliyeed inay ku soo laabtaan dalka hooyo iyo deegaanadooda oo ay ka mid tahay waqooyi bari, si looga bilaabo mashaariic horumarin dhaqaale iyo dhismayaal aad iyo aad nolosha dadka wax uga bedela, sida dekado, garoonno, soo saarista shidaalka iyo macdanta iyo horumarinta kalluumaysiga badda. intaasoo dhammi aqoon loo helo ayay u baahan yihiin. aqoontii intii noo joogta dalka way noo joogtaa, inta dibadda jirtay khubarada ah inay mishaar qaataan uga shaqeeyo. war mishaarkiina waad helaysaa, aan leenahay wax ka wanaagsan oo mustaqbalka ummadda uga fiicanna waad helaysaa.
waxaan rabnaa waqooyi bari madaxdiisana aan ku qornay haddii ay tahay dhaqan iyo haddii ay tahay madaxda la doortayba nabad inay u taagan yihiin ayay noo ballan qaadeen noona xaqiijiyeen dowladda federaalka ee Soomaaliyana nabaddaas ayay gacan siinay ayay garab taagan tahay waqooyi bari cidna duulaan kuma aha waxaan rajaynayaa inaan ayadana duulaan aan lagu noqonin dowladda federaalka ee Soomaaliya dadka Soomaaliyeed isku soo celintooda midayntooda hal dowlad iyo hal calan u wada yeelistooda ayaan ku mashquulsanahay walaalayaal Soomaaliya hal mabda oo weyn aan u baahannahay waa mabda'aas mabda aan leeyahay lagama tanasulayo midnimada waa inaan midownaa waa inaan midownaa inaan isla ogolaano isku raacnaa markaan intaa meesha soo gaarno qodobka ku xiga wuxuu yahay sidee loo midoobayaa ra'yiga ka furan talaa ka furan waqti dheer inay qaadataa suurtagal ah waqti gaaban inay qaadataa suurtagal ah waa wax laga doodi karo furan laakiin ma midownaa mase waa kala tagnaa su'aal miiska saaran oo magaciisi maaha walaalaha madaxda hargeysa joogta waxaan rabaa inaan u sheego war dadka waqooyiga Soomaaliya qaybahaas joogaahi in badan ayaa la soo marin habaabinayay daan dabagaala aan weligii la gaarayn loo tilmaamayay ilma geedka muuqda lagu geedigeliyaa lalahaayoo lalahaa waa soo dhowdahay maantana meesha xumeeday caga dhigatay oo Israa'iil aana waxaysatay dadka waqooyi bari waxaan leeyahay dadka waqooyi u dhashay gobolada waqooyi qaarkood ee midnimada u taagan deegaanadoodii inay ku noqdaan looma ogola dadkoodii inay u tagaan ay soo salaamaan looma ogola hooyadii haddii ay xanuunsan tahay ama walaalkii uu geeriyoodo in uu tago uu muxuu ahay soo salaamo looma ogola laakiin saracaad wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil inuu yimaado waa loo ogol yahay Soomaan isgabsan ma aha labadaas arrimood ya wiilka Soomaaliyeed ee Soomaaliya inteeda kala jooga iyo gabadha Soomaaliyeed ee hooyadii ama aabii inuu soo salaamo raba oon siyaasad wadin oo aabbuhu aanu siyaasad ka shaqayn hooyada tacbaanka ah aanay siyaasad ka shaqayn inuu soo salaamo oo ka soo duceysto in loo diido yahuudigiina la keena meesha oo nin ay koofidii yareed inta u saaran tahay la shushumiyo dhinacyaha laga marmaro oo calankii saas loo lulo calanka buluuga aanay qofkii wada tahay xabsiga hal la geeyo la yiraa waa maan guracan iyo garasho jaantii la sheegi jiro waa maan guracan garasho jaan wax xikmad ay ku salaysan tahay oo maanta adduunyada kale iska dhaaf annaga Soomaalida inaan fahmo adduunyada kale xataa ay fahmi karta ma laha Israa'iishaas dadka dhan ay la dirisiinaan annaga aanan weliga yaa maqlay annagoo muxuu waayahan Israa'iil wax ka sheegayna ama caynayna ama wax dhahayn maxba kuma raacsanayn sida ay u dhaqmayaan iyo sida ay u nool yihiin iyo sida ay waxyeelayaan kuma aanan raacsanayn laakiin haddana intaan duulno dagaal uma aanan aadayn laakiin nasiib darra ayada soo duushay hadda noo timiday ku guulaysan mayso qarni ka horay ahayd meeshaan saan cadaalihii yimiday wixii dadkan awooyaashood iyo awooyaashaas ay ka eriyeen oo ay diideen in ay maxaan ku raday waxa macal kuwa maanta hargeysa jooga ay ku jiraan qarniga 12aad suurtagal ma aha Israa'iil meeshaan meel ugama bannaana dadka Soomaalida ee ka dhax arkay maslaxadda waxaan leeyahay walaalayaal maslaxad idinka ma jirto halka Israa'iil maslaxada idinka ma jirto mid adduunyo iyo mid aakhiraba idinka ma jiraan yaan lagu kadsoomin oo caadifada iyo emotionska dadka yaan laga faa'iideysanin maalin dhaweytaan ka hadlay aqoonsiga
ama dal jiro adduunyada aqoonsan tahay inuu kala go'o waa inay horta dalkaas iska lahay waa inay ku heshiiyaan waa kala baxayna waa kala tegay waa inay yiraahdaan ma dhicin adduunyada taariikhda cusub dal dawlad la aqoonsanaa oo caalamku aqoonsanaa jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa ka tirsan oo hay-adaha kale caalamiga ka tirsan oo si qasaba loo kala jaray dadka dalkaasi ka dhaxeeya haddii dawladnimada ay ku heshii waayeen inay isku qanciyaan iyagu waa kala tegaynaa markaan aan ismacsalaameyno oo ay la yimaadaan ay yidhaahdaan annaga waa ismacsalaameynaynaa oo sidaa lagu aqbalo dadka sidaa dhahay oo dhanna dib u eeg wax kala wadaa ka dhaxeeya waa kala diin waa kala muxuu ahaaye jinsi iyo cirqigay ku kala duwan yihiin muuqaal iyo macnay ku kala duwan yihiin waa dad markii horeba siyaasaddu ay isku keentay waataan hore uga hadlay dowladnimadu waa laba nooc midna dad isleh oo meel isku mida degan ayaysa dawlad si ay ugu ilaaliso waxa ka dhaxeeya waxa dadkaasi ka dhaxeeya oo u ah udubdhaxaadka inay u ilaalisay dawlad u samaystaan kuwane isma laha isku diin ma aha isku luqad ma aha isku dhaqan ma aha isku habnololeed ma aha waxay dawlad u raadiyaanay u samaystaan si ay ugu samayso wax ka dhaxeeya wax ka dhaxeeya si ay ugu samaysa ayagoo kala diina oo kala dad ah haddana wax ka dhaxeeya inay helaan haddaan wax ka dhaxeeya dadku aanay helin dawlad ma noqon karaan annaga soomaali haddaan nahay ilaahay ayaa na siiyey naxariista ilaahay nagu galladay ka mid tahay wax naga dhaxeeyaan leenahay soomaalinimadaa naga dhaxayso afaa naga dhaxeeyo diinaa naga dhaxeeyo dal mid ahaa naga dhaxeeya waxna kala qaybi kara ma lihin maamaadii wasiirka walaalo reer jabuuti halka uu ka sheegayay waxaan birina goyn biyana mayrina naga dhaxeeya ahay soomaalinimaday ahayd markaan waxaan u dhahay inta oo reer jabuuti ah annaga soomaaliya ah marka waa sidee xaalkeenu wax naga dhaxeeyaan leenahay oo aanan ku kala bixi karin kuna kala go'aynin si qaabdarro ah aan isaga raaraaracno waa halkeed wax rag jeclaado ama rag ku taliyona ma aha sidaas daraaddeed walaalaha waxaan leeyahay caqligu ha soo noqdo haddii tabasha jirto haddii maxaanku idhaha xanuun badanoo hore uu jiro yaanan shalay la noolaanin waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa walaalaha muxuu ahay waqooyi bare ee yiri wixii shalayna gaari wixii naga dhintay maxaanku idhahdayey gabigii sayidka maxayd waxay ku jira durdurkii loday naga dhaceen iyo dowladdii geela yacnii wixii shalay hallaabay hibashadooda macno nooma samaynayso waxay tahay maanta inaan tale inta u fadhiisanno war wixii shalay ma xumaayeen haa ma xanuun badnaayeen haa war berri yaanay noo soo noqonin sidii ay noogu soo noqonayeen aan ka hadalno aan ka tashanno aan jiino laakiin shalay dherigii layga jibiyey aashuunkii layga dardaray iyo maxaanku idhahdaaye layga kala gooyey haddii aan taagnaa tago waa dhib walaalayaal dadaa naga dhintay maalintii magaaladan madaafiicda ay ku socotay ayaan ciddii xasuustaa masaajidka madaxtooyada dhexdeeda ku yaalla waxaan ka yidhi war maa la heshiin doonaaye qubuuraha korkooda yaan lagu heshiinine maanta ayadoon qubuura jirin ha la heshiiyo nasiib darro ma dhicin laakiin maanta hadda weliba dadka reer waqooyi bari waxay leeyihiin war qubuurihiianba muxuu ahaaye inaan ka tagnoon hore aan rabnaaye aan heshiino wax loo dha ma laha war soomaali waa isdishay waa la dilay intaan iska dilnay inta ajnabi naga dilayaa ka badan inta badaha nooga sii dhimanayso maalin walba nambarkoodu sii badan waxaan ku joogi karnaa waa midnimo iyo dawlad xoog leh inaan samaysano soo haweysan jira waa markii saddexaad ee dalkeenna dibadda inta looga soo duulo aan u taagannahoon leenahay maya baddaa waa qaadanaynaa maya dhulaan inta ka goosanaynaa maya maanta hadda waaba soo degaynaa ha timidba meeshaba annagaa soo degaynaba oo ciddo kaleoo meelo kale ka soo jacburino soo khasabnayna intaan keenaynaa
isaga soo daadinayna halkaanaan meelaan geyna weyna halkan dadkaas reer falastiin 70 sano ayaa dhulkooda laga dhaqaaji waayey 70 sano inta u wad xagga walba madfac ku rid inta waa la dhaqaaji waayey annaga ma sahlayna in dhulkoodii laga soo wado ya say suurtagal ku tahay in dhulkoodii dadka 70 sano diiday inay dhulkooda ka tagaan ee ku baaba'ay ku dhintay ee aan arkaynay wixii ku dhacay caruurihii iyo haweenkii iyo masaakiintii iyo gurihii aad arkaysid maanta u malaysid meel maxaan ku raaa aakhiro aad u malaysid magaalooyinka qurxanaayo dhisnaa daaraha leh dadkii la soo qaadayaa halka inta lagu soo daadiyaa looga tagayaa ay xuquuqdoodii abadiyo ku weynayaan dhulkan dhul Soomaaliyeed waa dhul Soomaaliyeed waa Soomaali un baa lahaa leh ayadaana lahaanayso adduunyada waxaa ku nool dad la yiraahdo biduun waa maxay dal ma leh dawlad ma leh waa nool yahay waa socdaa wuxuu inuu noolaado waa loo ogol yahay laakiin ma leh maanta qarniga 21aad ma horseedayno raallina kama nihin in dad Falastiin biduun inay noqdaan ma samaynayno naguna waa ku dhibanaanayn ayaguna waa dhibanaanayaan dhagax laba shimbir ku dil waay inuu cadow loo arko iyo anagoo cadow hal dhagaxna lagu dilay suurtagal ma waa diidnay waxaan leenahay walaalahaasna war waxa Israa'iil iyo Netanyahu idin hayaan ka badanaa idin hayna jacaylkooda ka badanaa idin hayna Soomaalinimo iyo wanaag iyo walaaltinimo kooda ka badanaa idin hayna haday powerkii xukunka Israa'iil karto mid ka badan hayna na xukuma annaga diyaar na xukuntaane annagoo Soomaali oo midaysan na xukuma laakiin meel aanay wax haabanna soo dhow markale waxaan u hambaliyaynayaa madaxda la doortay hay'adaha la dhisay ee dawladnimo iyo bari waxa la idinka sugayaa waa nabad dagaalkii iyo colaadii waxaad ku gashaan la soo aragay bal nabadda iyo maxaan ku leeyahay wanaaga iyo horumarka waxaad ku gashaan hal la arko hadii alla yiraahdo aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh